qaybta labaad waxay inoo maraysay yaab ayaa ka soo haray sirdoonkii MI6 markii uu u gudbiyay warbixino aad halis u ahaa oo ku saabsanaa ciidanka iyo sirdoonka Jarmalka iyo basaasiinta Jarmalka ee ka shaqeeya Ingiriiska. Taasna waxay shaki ku abuurtay MI6, waxayna go'aansadeen in Pollard xabsi lagu hayo inta laga baarayo qudhiisa, taas oo uu si deganaansho ku jirta u ogolaaday. weliba asagoo dhoola cadeynaya ayaa wax uu sheegay inay ku dhaqsadaan baaritaanka, waayo waxa uu sheegay in xabsiga uusan jecleen in muddo uu kusii jiro. sida caadada ahayd, MI6 waxay fatasheen meel kasta si ay u helaan wax ku saabsan Pollard, ilaa arrinkadiis ah oo ay timid oo ah maalin maalmaha ka mid ah nin ka mid ah sirdoonka Faransiiska oo Faransa ka soo cararay markii Jarmalka qabsaday oo hadda u shaqeynayay MI6 ayaa asagoo feelal baaraya indhihiisu waxay qabteen sawirka Pollard. markaas asagoo yaaban si kor ah ayaa waxa uu yiri Charlier Beer ahaa muxuu halkan ka sameynayaa. shaqo wadaagiisii Ingiriiska ahaa baa ku yiri ma taqaan ninkan. haa, annagu noo shaqeyn jiray oo noo joogay Jarmalka, balse markii Paris la qabsaday warkiisa waan weynay. si degdeg siima ku jirta ayaa loogu yaacay qolkii uu ku xirnaa Pollard si arrintan wax loogu weydiiyo, laakiin wax aysan filin ayaa dhacay oo waxaa qolkii lagu waayay Pollard. Ingiriiskiina arrintii cirka ayay isku shareertay. waxaa la galay raadinta basaaska baxsadka ahaa. isla xilligan niman khubaraha ayaa ku dhex jiray qolkii Pollard ka fakaday oo rabay inay ogaadaan sida uu uga baxsaday meeshuu ku xirnaa. waxayna ogaadeen in uu adeegsaday haraagii cunadii loo keeni jiray si uu u haleeyo albaabka, taasna ay keentay in iridka uusan si fiican u xirmin. dhakhtarkii cilmi nafsiga oo markii hore arkay Pollard waxa uu sheegay in ninkan garaadkiisu garashada aad u sareysa oo dadka kala dheer yahay ilaa 4 darajo, isla markaana uu awoodo in uu isticmaalo farsamooyin badan si uu u gaaro hadafkiisa. basaaskii garaadka badnaa meel uu jaan iyo cirib dhigay waa la waayay, iska daa Ingiriiska, Yurub oo dhan ayaa laga waayay. sanooyinkii dagaalka ee isdaba joogay markay dhammaadeen oo isbahaysigu uu guuleystay, arrintiina degtay ayaa Ingiriisku helay gal warbixineed ku saabsan Pollard oo dhan. suuradiisana ku dhagan tahay asagoo dhoola cadeynaya, muuqaalkiisana uu ekaan karo wadamo kala duwan qaarkood sida Faransiis inuu u dhashay Ingiriis ama uu u dhashay Jarmalka. xitaa waxaa loo maleynayay inuu noqon karo muwaadin Ruush ah. magaca ku qornaa wuxuu ahaa Charlier Beer, ku dhashay Marseille, Faransa. inkastoo Pollard la waayay, haddana Ingiriisku waxay isku mashquuliyeen inay wax ka ogaadaan, waxayna aad u baareen faylkiisa iyo wixii warbixin ku qornayd oo laga heli karay. waxayse la kulmeen arrin jug ku noqotay, waayo wixii warbixin ahaa oo dhan waxay ahayd been abuur aan waxba ka jirin. Charlier Beer qof la dhahaa oo sirdoonka u shaqeynayay ma jirin. isweydiin baa dib u soo laabatay. Pollard waa kuma? dhalashadiisa waa maxay? yuu yahay? intii lagu howlanaa weydiimahaas ayaa waxaa tiftif Ingiriis u jooga Mareykanka ka yimid warbixin si kooban u oranaysa John York Pollard halkan ayuu joogaa. Mareykanku waa diideen, waxayna u sheegeen Ingiriiska inaysan aqoon qof la yiraahdo York, qof xataa u eg tilmaantiisa xataa uusan ku jirin feelashooda, laakiin Ingiriisku warkaas ma aysan rumaysan. tiftifka u soo diray warka wuxuu ahaa mid lagu kalsoon yahay, magac iyo muunad ku dhaxlay basaasiinta Ingiriiska, mana dhici karto in warkiisa laga shakiyo. weligiina wuxuu soo diray lagama shakin. sidaa darteed waxaa Ingiriisku ka dalbaday in warar dheeraad ah uu raadiyo oo arrintan ku saabsan. xilligaas Mareykanku wuxuu aad uga howlanaa sameynta hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA, waxayna u baahnayd qof kasta oo waay arag u ah basaasnimada. xataa maxaabiistii Jarmalka ee basaasiinta ahaa way ka faa'iideysteen. qof kasta oo wax u tari karna way rabeen. dadkii shaqadoonka isla markaana CIA-da ku biiray waxaa ka mid ahaa Pollard oo watay magaca hadda loo yaqaan ee Ernest Pollard. ilaahay amarkiis Mareykankii waa rumaysteen warqadihii iyo asagaba, waxaana lagu qaatay in uu tababaro u noqdo kooxaha cusub ee ku soo biiraya hay-adaha sirdoonka Mareykanka. wuxuuna muujiyay dadaal iyo in uu hawshiisa aad u yaqaan kana soo bixi karo. 10 sano arrintii cid ma ogaan, inkastoo oo uu nolol degan ka samaystay Mareykanka, bulsho cusubna dhex galay, xiriirna la sameeyay rag sarsare oo awood ku leh dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadaba. haddana Ingiriisku waxay ku adkaysanayeen in uu joogo Mareykanka una shaqeeyo. wax badanna waa uga digeen Mareykanka,
waxaana Mareykanka u aaminay Pollard oo kalsooni buuxda ay u siiyeen sida uu weligii u shaqayn jiray oo kale. Wuxuu tababaray dad cusub oo sirdoonka Mareykanka ah oo hormuud u ahaa CIA-da, oo markii dambe aad caan u noqday. boos sarena waa uu ka gaaray Pollard adduunka sirdoonka. sida markasta dhacdana xaasid waa jira iyo masiirow, sidaa darteed mar kale ayaa dib loo baaray feelkii Pollard. sida ku qornayd, Pollard waxaa iska dhalay hooyo Belgium ah iyo aabbo Polandes ah, wuxuuna ku dhashay Yugoslavia, waxaana soo korisay hooyadii kadib markii aabihii la waayay sida uu u joogay Yugoslavia. waxaana la isweydiiyey maxaa hooyadu ugu laaban weyday dalkeedii Belgium, maxaa dhigay ayada iyo wiilkeeda Yugoslavia. wax badan waa la ogaan waayay kadib markii dagaalku wax badan burburiyay. xaasidiintii iyo dadkii kale ka mastarsanaa Pollard dib ayay u laqeen, waxay wateen. waxaase dhacay wax aan cidna filayn oo sanadii 1960kii. qaybtii saddexaad ee sheekada waa naga intaa. waxaa inoo ballanaa qaybta afraad ee sheekada insha Allah.